waxaa maanta magaalo xebeedka Hobyo ee rugta ganacsiga Galmudug soo gaaray xildhibaano ka kala socday labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya si ay uga qayb galaan shirka nabadda iyo dib u heshiisiinta ee ka socda magaalo xebeedka Hobyo waxaana xildhibaanada soo gaaray magaalo xebeedka Hobyo ku weheliyay odayaasha dhaqanka ee ayaguna ka qayb gali doona shirka nabadda iyo dib u heshiisiinta Galmudug soo dhaweyn kadib ayaa xildhibaanada baarlamaanka loo soo galbiyay xarunta degmada Hobyo waxaana soo dhaweyn ugu sameeyay maamulka degmada Hobyo iyo odayaasha dhaqanka ee ka qayb galaya shirka nabadda iyo dib u heshiisiinta ugu horreyn waxaa goobta ka hadlay maamulka degmada iyo waxgaradkii ka qayb galaya shirka nabadda iyo dib u heshiisiinta Galmudug sharaf weyn inoo ah shirkan qiimaha iyo qaayaha badan leh ka socda degmada Hobyo aad iyo aad baan maaragtay ugu faraxsanahay aad iyo aad baan idin soo dhaweynaynaa dadkiini iyo dalkiini ay muddada ka maqnaydeen ayaa u timaadeen gacmo furan ku soo dhawaada hadda warka idinku badimay waa daalantihiin maanta oo dhan soo socoteen waxaan rabaa inaan ku soo dhaweeyo gudoomiyaha degmada alle horta markii hore ku soo dhawaada Hobyo waa u hiiliseen Allah idin hiiliyo maadaama iliko waqtigiini iyo howlihiini iyo danihiini aa u soo hortay shirkan Hobyo inay ka qayb gashaan waxaan leeyahay soo dhawaada waana mahadsantihiin Hobyo waxay u baahan tahay wax kala maahe in madashan lagu ballamay ay noqoto mid mirar dhasha waa mid u dan ah dadka deegaanka ku abtirsada Galmudug gaar ahaan shanta beelood ee meeshan ku ballantay inay isugu timaado faa'iidada ay leedahay wax kala maaha in yaani madashan ay macna ka soo baxdo wax kala maaha waxa waaye maxaa loo ballamay danta loo ballamay sameeyay waxaan ogaa waxa loo ballamay waxay ahayd in dhaqan ahaan iyo beelaha dhaqanka beesha xal loo helo nidaamka beesha xal loo helo dhibaatada beesha dhexdeeda ka jirta la xalliyo lana sameeyo xeer bulshadaana ay ku wada dhaqanto waana markii aanu maleynaayo labaad ama saddexaad uu noqonaya inay mar isu timaado beesha 100 sano laga jooga dadka qaar ka sheegaan qaar 83 sano sheegaan yaani madashii ka horeysay waxa lagu sheegay ceelur inay ka dhacday oo beelu isugu tageen 1927 kuwa kale ka sii horeeyna waa jireen laakiin dhab ahaan adduunka maanta xadaariga ah ee ilbaxnimadu ka jirto intay beeshu heshiiso oo meel fariisato oo go'aan inay gaartay ay ku tashato waa markii ugu horeysay madash ka soo bilowday Hotel Afrique maanta waxay fadhidaan Hobyo shirkaanu haddana xamar wuxuu ka socday hal sano iyo bar haddana halka laba bilood oo afka galiyay waxa la rabaa inay ka soo baxaan wax qiimo badan ay ka soo baxaan waxa la rabaa inay ka soo baxdo abargidir waxay ku tashatay ku soo aasaasay xamar guddigii ka tali lahaa abargidir arrimaheeda ka tali lahaa iyo dekada Hobyo say ku furan lahayd arinta uu qaalisan dad inta leeg oo qarana oo badweyntan Ilaahay siiyay oo dekad lahayn facnaga waa ka harnay ina ka daba tagno facno higsanaan rabna hadii Ilaahay idmo oo naf iyo maal aan isugu geeyno naf iyo maal iyo xoog iyo wax walba inaan isugu geeyno dekada xawlo inay ka dhoofaan oo wax nooga degaan aad iyo aad u mahadsantihiin dhanka kale isla goobta waxa ka hadlay boqor Iimaan Xasan Jiirow oo kamid ahaa wafuudii soo gaartay magaalo xebeedka Hobyo iyo xildhibaan Warsamo Joodax oo kamid ahaa mas'uuliyiinta soo gaaray magaalo xebeedka Hobyo ayaa sheegay in safarkooda uu ku saabsan yahay ka qaybgalka shirka nabadda iyo dib u heshiisiinta ee ka socda Hobyo runtii anagu safar baan soo galnay waa la soo diyaar garoobay qayb koobanina way maqan tahay wayna soo daba socotaa oo mas'uuliyiin fara badan iyo dad kale oo naga maqanina waa soo socdaan insha Allah dadka xooggiisina qaarna waa joogay intii badnayna maanta ayay timid inta kalena wayna soo daba joogtaa shirkani wuu dhamaystirmayaa insha Allah sidii loogu talagalay iyo dadkii loogu talagalay way imaanayaan dadka beeshan halkan isugu timid oo ku shiraysa waxay go'aansatay halkan inay tala xoog leh wada tashi iyo nabad inay halkan ku qaadato ujeedkuna waxa weeye inay dadka beesha halkan isugu timid ay ku tashato xeerna ku qorato ayaduna ay ku dhaqanto dadka kalena ay kula dhaqanto dhammaan ummadda Soomaaliyeed meel kasto ay joogaan baaq waxaan ugu diraynaa beeshani waxay ka shiraysaa danaheeda hoos ahaaneed waxay ka shiraysaa nabadda waxay ka shiraysaa wada tashi iyo xeer dhaqan halkan ka soo baxay oo asalkooda ayagu inay halkan ku tashadaan bay isugu yimaadeen annagoo u gogol dhigayna muraadkeenu yahay inaan danta guud ma taqaana Galmudug iyo midda guud ee Soomaaliyeed intaba aanu ka shaqayno ay tahay muraadkeenu aaskii ma taqaana bahda halka degan iyo deegaanka Galmudug ama Hobyo na aan ma taqaana inaan aaskaas dhigno aan muraadkeenu yahay
waxaan soo dhawaynaynaa aan ku faraxsannahay guddiga ama madaxda kala duwane ama degmada ama maamulka kaleeto shirka intaba howlaha ay mataqaanaa qabanqaabada ay wakiilka nooga ahaayeen halka ka socda ayaan aad ugu faraxsannahay aan xoojintiisa u nimid hore inaan u sii wadnaan uu muraadkeenu yahay dadka shirkan qaybta ka ah ama mataqaanaa magacan kamida meelaha kala duwane mataqaanaa dibadaha iyo shira waxaan rajaynaynaa inay ka qayb qaataan laakiin muraadkeena waxa aan ku gabagabaynayaa aniga waxa weeye muraadkeena waxa weeye inaan dadka Soomaaliyeedna soo dhaweynayno aan ka shaqeynay wax ummadda Soomaaliyeed cid lid ku ah ama mataqaanaa galmudug aan qaybaheeda kala duwan ayaan soo dhaweynaynaa rajaynaynaa inay shirka nagala qayb qaadan doonaan maxamed muxidiin saxan soxo galmudug TV hobyo